Waan ku salaamay daawade. Ku soo dhow muuqaaladii aan kaga hadli jirnay caasimadaha wadamada Afrika. Muuqaalkan ka hor aan kaga hadalnay caasimadaha wadamada Afrika waxaan ku soo qaadnay 10 ka mid ah caasimadaha Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa 10 ka mid ah caasimadaha wadamada Afrika. Harare. Caasimadda waddanka Zimbabwe waa Harare. sidoo kale waa magaalada ugu weyn ee waddanka Zimbabwe. Luqadda rasmiga ah lagaga hadlay magaaladani waa English. Zimbabwe waxa lagu xasuustaa madaxweynihii ku hadli jiray hadallada halku-dhigga inta badan noqda ee Robert Mugabe. Caasimadda 12 soo qaadan doona waa caasimadda waddanka Mali ee Bamako. Bamako waa magaalo ka mid ah magaalooyinka ku yaala waqooyiga Afrika. Luqadda rasmiga ah laga hadla waa French, maadaama ay Mali tahay wadamadii uu gumaysan jiray Faransiisku. Djibouti. caasimadda 13 soo qaadan doona waa caasimadda waddanka Djibouti. Daawade, waxaa jira wadamo badan oo la magaca ay waddanku uu sidoo kale yahay caasimadda. sidoo kale Djibouti waa caasimadda waddanka Djibouti. waa caasimad ku taala Geeska Afrika, waxaana lagu tiriyaa in ay tahay caasimadaha ugu mashquulka badan dhinaca maraakiibta, maadaama ay ku taalo mandaqada iskaga gooshaan maraakiibta caalamku. caasimadda 14 soo qaadan doona waa caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho. Muqdisho waa magaalada ugu weyn Soomaaliya. Muqdisho waxa ay kulaalaysaa badweynta Hindiya, waxaana ka mid tahay caasimadaha ugu quruxda badan maadaama ay dhulku xeebaha ay ku taalo. caasimadda 15 isla markaana caasimadda ugu dambaysa ee Geeska Afrika waa Juba. Juba waa caasimadda waddanka South Sudan. waa waddanka ugu da'da yar adduunka, maadaama uu jiro 12 sano oo kaliya oo Suudaan ayaa uu ka qaatay xornimada 2011. dadka ku nool magaalada waxaa lagu qiyaasay inay yihiin 369 oo qof. caasimadda 16 soo qaadan doona waa Lusaka. Lusaka waa caasimadda waddanka Zambia. dadka ku nool waxaa lagu qiyaasay inay yihiin 2,500,000 oo qof. caasimadda 17 soo qaadan doona waa caasimadda waddanka Guinea-Bissau ee Bissau waa caasimadda waddanka Guinea-Bissau. waa dal ka mid ah dalalka Afrika hodanka ku ah dhaqaalaha. waa dal ka mid ah dadka ku hodanka ku ah wax soo saarka beeraha iyo shidaalka. Bissau caasimaddan waxaa degan dad gaaraya 5,500 oo qof. caasimadda 18 soo qaadan doona waa caasimadda waddanka Senegal ee Dakar. caasimaddan waxaa ku nool 2,900,000 oo qof. waa ku dhawaad 3 milyan oo dad ah. caasimadda 19 soo qaadan doona waa Freetown ama caasimadda xorta, waana caasimadda waddanka Sierra Leone. dadka ku nool caasimadda waddanka Sierra Leone waxaa lagu qiyaasaa 1,136,000 oo qof. caasimadda ugu dambaysa ee 20aad soo qaadan doona waa caasimadda waddanka Congo ee Kinshasa. Congo waa waddan qani ku ah wax soo saarka macdanta, isla markaana ah wadamada ugu waaweyn Afrika. waana waddanka uu maro webiga Congo, waana halka uu ka yimid magaca webiga Congo. Kinshasa dadka degaa waa 13,171,000 oo qof.